حسن شريك وحربا أنا بل سكوبا نوش رحضو arrimaha walaaca laga qabo dhinaca xuquuqda aadanaha marka la yiraahdo doorashadan wadanka Uganda horta waxaan rabaa inaan aan si hoos aan u xariiqo in sida reportkan maartay in reportkan ka soo baxay adda uu muujinayo doorashooyinka waxay naqdeen mar xuquuqda aadanaha heerarkeedu ay hoos u dhacaan ka hor intayna dhicin markay dhacayso iyo markay dhacdo ka bacdiga go'aanka la gaaro maxaa yeelay dadka u ololeynaya nabadda xuquuqda fikirka maartay in la isqaasado ay ka mid yihiin suxufiyiintu inta badan dad runta inay sheegaan doonaya wey dadka xukunka haysta iyo kuwa kasoo horjeedaba intaba ma ogolo in dhaleecayn ka dhan ah loo soo jeediyo marka waxaa arkaysaa in maaragtay suxufiyiin fara badan ay ka mid tahay ilaa iyo 124 hadda wadankan Uganda in maaragtay dhibaatooyin ka dhan ah lagula kacay oo la xiriira doorashooyinka waxaa arkaysaa wadan dhan oo dhisnaa oo nabadaha oo Burundi la yiraahdo hadda kaleeto maxaa yeelay doorasho dhacaysay iyo nin doonaya inuu kororsado waqtigiisii in maanta aad caqabado u fara badan oo u dhib badan ay ka taagan marka waxaa leedahay xuquuqdii aadanaha marka laga eego dhinacaas suxufiyiintii siday rabaan uma hadli karaan oo waxaad arkaysaa in maaragtay inay ayaga istafatirayaan inay maaragtay in dhaqdhaqaaqooda la xayirayo in qalabka qaarkood inta laga qaato laga burburinayo waxaa arkaysaa in qaarkood loo diidayo inay maaragtay access ay u helaan inay meelihii doorashada ay ka dhacayso amba candidatekas inuu tago caqabado aad u fara badan oo aad u dhib badan baa meeshii ka taagan Uganda waxaa arkaysaa marka doorashadan ka hor in xukunka xisbiga hayahay uu dhigay caqabado uu doonayo inuu ku xayiro in furfurnaanta iyo heerarka lagu raaxaysto xuquuqda aadanaha wadankan si ay ugu yeelato impact oo marka uu doonayo in maaragtay booliisku iyo dowladuba ay doonayaan qofkay doonaan in ay codsiyaan qofka kale tan ay codkay ka qaataan caqabadahaas waxaa kamid ah sharcigii lagu maamulayay is-urursiga amba waxaa la yidhahdaa afka qalaad la yidhaahdo maaragtay Public Order Management Act waxaa kamid ah NGO Act dhammaantood waxaas dhan waxaa loo abuuray iyo qaar artiika fara badan oo loogu talagalay in is-urursiga يعني dadka isku yimaadaan iyo maaragtay faafinta fikirka in lagu yareeyo ama maaragtay lagu koobo oo aysan ay lagu qasbo dadka Uganda jooga 3 amba 4 qofood ka badan hadday meel ku kulmayaan inay ogeysiiyaan amba ay mararka qaar ruqsad ka qaataan maaragtay ninka booliiska haystaahay si uu maaragtay u monitor gareeyo waxa ay ku hadlayaan marka dhibaatooyinkaas oo dhan waxaa loo sameeyay in maaragtay in xorriyadda saxaafadda iyo tan is-urursiga iyo tan fikirka intaba maaragtay lagu xakameeyo aad baad mahadsantahay xasan adiga